ninba tuulo yar buu deganaa gaariga markaa magaalada ka soo baxay magaalada kale u socda ayaa soo mara ninka urgac yar buu haystaa urgi yar urgicii kaliya lahaana uu qalay baa la yidhi halkan uu yaalaayo markuu baabuurkii uu waayay urgi ayaa ka cun hilibkii intii leeka ayaa wankii harigaygaga celiyay buu yidhi dadkii maanta halka dhulkan u soo qaxay oo dhan waxay marayaan calaacal arayaa dalkayga nabadu nooga dhigo mar nagu celiya runada waa nabada ogaada hadda dhibaato ma jirtee waxaan eegnay meesha ma aragtaanay tacliin ubadkeenu ay ka helayaan caafimaad ay ka helayaan nabadgelyo ay ka helayaan hadhow shaqo ay ka helayaan ay ku yar cayilayaan intaasaan eegnay dadna maanu eegin dadkan aakhiradoodii iyo diintoodii siday noqon doontaa yaa muslim ukhti almuslima meel dheer wax ka arag ha noqon qof leh ha eegin nolosha adduunyada waa inaad eegtaa tani way dhammaan aakhirana waa la isweydiin doonaa ogow awlaaddu waa nicmado waa lagu weydiin doonaa arsaaqadaan cunayna waa nicmado waa layna weydiin doonaa islaamnimada waa nicmado waa lagu weydiin doonaa afar shay baa qof walba banka qiyaama lagu weydiin doonaa cimrigii muxuu ku soo dhammeeyey dhallinyarnimadiisii muxuu ku soo gaboojiyey arsaaqadda uu cunaayey halkay ka soo gashay halkuu ku bixinaayey cilmigii ilaahay barane muxuu kaga camal falay qofku waa la weydiin doonaa waa layna weydiin maxaan ilaahay la hortegaynaa markaas إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو إليه المصير إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحمد لله sidaan maantaba duhurkii aan ka dhawaajinay run ahaantii ilaahay dartii un baan nii soo ziyaaranay ujeeddo kale umaanu iman waddankana waxaa keliyaan u soconnaa dadka muslimiinta walaalaha ayaan soo ziyaaranno oo aan isbaraarujinno oon isku nasteexayno naseexada diinigana qof kastaa u baahan ka hadlayaa u baahan ka maqlayaa u baahan ka sheekha lagu sheegayaa niga sii baahi badan sida biyuhu dhulka ay u nooleeyaan ayaa mawcidada diiniguna ay qofka bini aadanka qalbigiisa u nooleysaa dhulku haddii uu biyo waayo isaguna uu qalalayaa dhirta korkiisa saarana way qallalaysaa qalbiga bini aadamku hadduu mawcido iyo nasiixo diiniya hadduu waayo iyo baraarujin qofka bini aadamkuna uu qallalayaa markaas lidaalika qur'aankeena kariimka ilaahay markuu tilmaamayey waxa uu ku sheegay in huwa ilaa dikrun
lilcaalamiin qur-aanka dhan baa waxaa la yidhi waa xasuus oo caalamiintan oo dhan buu u yahay maaragtaanay xasuusin. caalamiintu waa jin iyo insiga oo qur-aanku wuxuu xasuusinayaa ilaahay abuuray buu qur-aanku xasuusinayaa in marnaba ilaahay inaanan la iloobin. qur-aanku waxau ina xasuusinayaa hadafkii laynaga lahaa ee adduunka laynoo keentay. qur-aanku waxau ina xasuusinayaa noloshan adduunyada maaragtaanay inay dhammaanayso oo aakhiradu ay baaqi tahay buu qur-aanku inoo sheegayaa. waxaa kaloo qur-aanku ina xasuusinayaa xaqii allahayna abuuray uu inagu lahaa iyo xaqii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu nagu lahaa iyo xaqa labada waalid ay nagu leeyihiin iyo xaqa maaragtaane qaraabadaadu ay kugu leedahay iyo xaqa xaasku kugu leeyahay iyo xaqa ilmahaagu kugu leeyahay adiguna aad ku leedahay korkiisa iyo xaqa jaarka ay kugu leeyihiin adiguna jaarkaada aad ku leedahay iyo addoommaha ilaahay abuuray xuquuqday kugu leeyihiin khalaa'iqda arlada dusheeda ku noole ilaahay ku abuuree bahaayimka la yidhaahdana xuquuqda ay leeyihiin buu qur-aanku inagu baraarujinayaa. marka qur-aanku waa tilmaam. walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir baa ilaahay yidhi. si loogu waantooba baa ilaahay qur-aanka u soo dejiyo waana la fudaydiyey. laynaguma adkayna waa laynoo fudaydiyey qur-aanka. barashadiisii waa la fudaydiyey, ku camalfalkiisii waa la fudaydiyey, ku dhaqankiisii waa la fudaydiyey, akhriskiisii waa la fudaydiyey. man qara'a xarfan min kitaabi illaahi falahu xasanah waalxasanatu bicashri amhaaliha. hal xasana qur-aanka xarafka ku yaalla qofka akhriya buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam xasanaa ilaahay casa wajalla u qoraa. xasanadiina waxaa loo gaadhsiiyaa buu nebigu yihi 10 xasano ayaa looga dhigaa. akhriskiisii waa fudayd, ku dhaqankiisiina waa fudayd oo waxaa lagugu yidhi fattaqullaaha ma stadactum, intaad kartaan ilaahay ka baqa. barashadiisii waa la fudaydiyo haddaad hoosta ka bilowdo ood kor u socoto adoo halkii u sarraysay aanan gaadhin haddaad dhimatid dadkii meesha u sarraysay gaadhay baad qiyaamaha la soo bixi doontaa. marka qur-aankaasi waa nicmo ilaahayna siiyey inaan isku baraarujinno oon ku fara adeygno oo nicamta ilaahay ugu weyne bini aadanka uu siiyey buu qur-aanku ka mid yahay. islaamnimadu nicmo ka weyn ma jirto. laakiin dadku nicmadaas inta badan maanta ma qadarinayaan. nicmat alislaam, nicmat aliimaan. bal dad badan maanta oo muslimiina diinta islaamku inay nicmo tahay uma arkaanba. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نبينا عليه الصلاة والسلام markii qurayshtu ay ku jeesjeesaysay aayadahan ay nebiga dushiisa ku soo degayeen, dareenka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam buu qur-aanku macnaynayaa. qur-aanka barashadiisii iyo ku dhaqankiisii iyo fahamkiisii iyo ku camalfalkiisii iyo ka shaqayntiisii iyo aaminaadiisii intaba qurayshtu qur-aanka way ka dheeraadeen buu yidhi, ku jeesjeesayaan, wayna ka hijroodeen ficlan. innakuna maanta dad badan oo muslimiinana maanta nicmadda ma qadariyaan. xaqiiqatanna waa nicmo ilaahay uu bixiyo. nicamta ugu weyne ilaahay bani aadanka uu siiye bal waa nicmadda islaamka. marka nicmadda ilaahay kuwa ku shukriya allah inaga dhigo. waan ucطiya 4 faqad ucطiyahunna khayra addunya waalaakhirah wabadanan cala albalaa'i saabiran wazawjatan laa tabgiihi khawnan fii nafsiha walaa maalihi. xadiis imaamu tabraani raximahullah uu soo saaray nebigu sala allahu calayhi wasalam ayuu yidhi 4 nicmadood qofka ilaahay uu siiyey, nicmaddii adduunyada taallay oo dhan iyo tii aakhira waa la siiyey. qofka ilaahay uu ku deeqay qalban shaakiran, qalbi shaakira oo qalbi ilaahay yaqaano oo mahadnaqaya, wa lisaanan daakiran iyo carab mar walba ilaahay xasuusan oo ilaahay xusaaya, wa badanan cala albalaa'i saabiran iyo jidh gaajada iyo kulaylka iyo xanuunka u adkaysi badan, wa zawjatan iyo ninka ilaahay uu ku deeqay ilaahay uu siiyey
gabadh wanaagsan oo iyaduna ninkeega aan khiyaamaynin wuxuu u dhiibtana u xajinayso ammaano leh iyadiina meel xun mari mayso ninkeedaabay ku qanacsan tahay wixii ninkeedu u dhiibtana waa u xajinaysaa waa gabadha saalixadda weeyaane afartaa nicmadood qofka ilaahay uu siiye buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam khayr adduunye iyo khayrkii aakhira qofka ilaahay waa siiyey buu rasuulku yidhi qalban shaakiran allah ina siiyo qalbiga shaakirku waa maxay waa qalbiga nicmadda waa qofka inta ilaahay uu u nicmeeyey eega nicmadda inta dadka kala haystaan indhaha aanan ku taagin nicmaddu in ada ilaahay ku siiyo waa la qaybiyey in adiga kaa maqana dadka kalea loo qaybiyey ogow qof kastoo adduunka joogana waxbaa ka maqanoo uu tabanayaa qof loo dhammaystiray ma jiro nolosha adduunyadu muslim iyo gaalba qof walba meelunbaa laga hayaa isagoo qof walba meel laga hayo inay wax ka maqan yihiin tabanaya ayaa haddana waxa ugu xigta baa layidhi geerida ugu xigta uu dhimanaya qofku marka dambe marka waa inaad noqotaa waa in aad yeelataa qalbi shaakira qalbi mahadnaqa waa qalbiga ilaahay yaqaana ee ilaahay marna aan iloobayn seed ku iloobaysaa ilaahay adigaba kuma iloobe ilaahay waa inoo nicmeeyey waxa nicman haysanana isagaa ina siiyey nicmadda kaa maqan ee tabanaysana meel kale kaagama maqnee isagaa haya camalka jirkaaga ka soo fulayana ilaahay waa la socdaay waa og yahay waxba ilaahay kama qarsoono haddaad shaakir noqotood ilaahay ku shukridana ilaahay waa ku og yahay nacam wa kaana allaahu shaakiran caliima ilaahay caza wajalla waa shaakir caliima weeyaanoo addoonka ku shukriya ee u mahadnaqa ilaahay waa yaqaanaa wa qaliilu min cibaadiya shakuur addoommahayga inta ii mahadnaqaysa iigu shukriyaysaana way kooban tahay baa ilaahay yidhi qaliilan maa tashkuruun intaad shukrinaysaana wayba yar tahay baa ilaahay yidhi caza wajalla marka haddii qofku shaakir uu noqdana addoonka shaakirka ilaahay waa yaqaanaa oo ilaahayna waa u mahadnaqayaa tabaaraka wa tacaala hadduu qofku maaragtaane nicmadda ilaahay uu daboolo oo ilaahay khayrkii uu caabudu ilaahay cisyaankiisa u badheedhana oo nicmadda ilaahay uu siiyo uu ilaahay dib ugu caasiyana ilaahay waa og yaho ilaahay lagama dhuuman karo waa raqiib ilaahay acmaashan qabanaynoo dhan ilaahay waa ka ilaalinaya la socdee arkaya maqlaya weeyaan meeshaa doonta joog arlada ilaahay baa leh marka mar walba ilaahay xasuusnow hadday cabsi tahayna qalbigaaga ku hay hadday maxabad tahayna qalbigaaga ilaahay ka jeclow hadday maaragtaana cabsi ay tahayna qalbigaaga cabsida ilaahay ha ku jirto hadday haybad ay tahayna ilaahay waa ku arkaya waa ku maqlayaaye ha caasin ilaahay ka cabso laana ilaahay waa raqiib kaamera baa qof walba ku rakiban oo jirkiisa ku rakiban oo ilaahay ku rakibtay taasaa maalinka qiyaamaha sheegi doonta waxaad qabato oo dhan marka dadka aad dhex joogtana haddaad noqoto qof wanaagsan keligaa markaad u baxdana aad noqoto qof caasi oo ilaahay caasinaya ilaahay caza wajalla meel walba ilaahay kama maqne ogow waa samiicun qariib weeyaan haddaad baridana baryadaada ilaahay waa maqlayaa waa qariib waa ka addoonkiisa u dhow weeyaan wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariid xididka halkaa mareexa waxowlaha la yidhaahdo waan uga dhowahay baa ilaahay yidhi addoonka maqalkaagan aad wax ku dhegaysanaysid iyo araggan aad wax ku arkaysid iyo gacantan aad wax ku qabanaysid iyo lugtan aad ku soconaysid iyo arladan dusheeda aad socotid intaba ilaahay baa iska leh kamero ilaahay baa ku rakibana waxbay duubayaan ogow marka waa inaad mar walba ay cabsida ilaahay qalbigeenna ku jirtaa oon garannaa ilaahay bay arkaya ilaahay bay maqlaya qofku cabsida ilaahay qalbigiisa hadday degta baa la yidhi macsiyadda inuu ku dhaco waa adkaanaysaa oo cabsida ilaahay waa freemkii qofka bini'aadanka dunuubta ka qabanaya weeyaan haddii jacaylada ilaahay qalbiga ay kuu gashana ilaahay daacaddiisu markaa way kuu dhib yaraan daacadda waxaa dhib yareeya bay culimmadu leeyihiin waa jacaylada ilaahay caza wajalla iyo jacaylada jannada aad u qabto ilaahay jacaylkiisa haddaad jeclaatid oo ballanka ilaahay kuu qaadana aad mar walba qalbigaaga aad ku hayso jannadu kugu weyn tahay salaada inaad tukato way kuu dhib yaraan soonka inaad soonto way kuu dhib yaraan qur-aanka inaad akhrido way kuu dhib yaraan masaajidka inaad ku xidhnaato way kuu dhib yaraan diintaada inaad ku dhaqantood cidna uga haybaysan way kuu dhib yaraan haddii cabsida ilaahay qalbigaaga ay ku jirtana
oo mar walba aad leedahay ilaahay baa ii jeedo ii arkaayo ii maqlaaya inaad macsiyo ilaahay ku dhacda markaa way adkaan marka cabsida qofka muuminka qalbigiisa uu ilaahay ka cabsanayo waa fareemka gaadhiga qabta weeyaan gaadhiga waxa joojiye qabta waa fareem qofka muslimka waxa macaasida ka qabanayana waa cabsida ilaahay azza wa jalla hadii cabsida meesha ay ku yaraato ama ay ka baxdo waa markaa wuxuu gaadhigu noqonaya bila fareem dadna markaa meel kasta uu galaya qofkii isagoo garanaya buu markaa salaadii ay dhaafi isagoo garanaya zinadu inay xaraan tahay buu zinadii ku dhici isagoo garanaya maaragtaane khamri laga shaqeeyo inay xaraan tahay ayuu haddana meel khamri uu ka shaqeyn isagoo garanaya maaragtaane been in la sheego oo xaraan inay tahay og ayuu haddana beenta sheegi limaada qofka bini aadanka waxa xalaash iyo xaaraanta lagu kala gartaa waa cilmiga weeyaan laakiin waxa xumaanta ka joojiya wanaagana ku dhib yareeyana waa iimaanka ugu iimaankuna waa labadani culimadu leeyihiin marna waa cabsida ilaahay oo waa maaragtaane waa khawf weeyaan marna waa rajaa weeyaano waa marka qofka muuminku ilaahay uu jeclaado uu jannada jeclaado uu ballanqaadka ilaahay jeclaadana rajadiisiba qofka qaaliba dadna ilaahay inuu adeeco salaadii cibaadada ku dadaalo waa u dhib yaraanaysaa qofku markuu ilaahay uu ka cabsoodo uu xisaabta dambaysa uu garto aakhiro ku xisaabtamana inuu macsiyo ku dhaca markaa way adkaanaysaa markaas maalin dhawaytuu mid su'aal weydiiyay anoo magaalo jooga halkan wadankan dhexdiisa wuxuu markabka markuu soo daadego markab taksiil aan nahay budo gaalada markabka la socotaan qaadanaayo alaabtaan u qaadnaa buu yidhi ee kartoomo khamriye sitaane waan u qaadnaayo gaadhigaan u saarnaayo ma cabna khamriga laakiin shaqada ka waran sheekh buu yidhi adi maxay kula tahay baan ku yidhi wuxuu yidhi wallaahi waa xaaraan buu yidhi maxaad iga weydiin baan ka yidhi إذا ضلت العقول على علم فماذا تقوله النصحاء qofkii isagoo aqoon u leh hadduu baadiyoobay nasiixadu markaa maxay u taraysaa maxay nasiixa kuu tari muraaqabadiiba sifatul muraaqaba qalbigiisa ka maqan ilaahay bay arkaayo ee maqlaaya taasaa ka maqan qalbigiisii nidaamka bini aadanku ay samaysteen waanakana waan ilaalinaynaa oo waad aragteen oo ninka Soomaaliga dalka markuu joogo wadooyinka markuu marayo haad kastuu iska maraa laakiin wadankan dhexdiisa markuu gaari ku wado ma laga yaabaa haad walba inuu maro muxuu ka baqayaa de qaanuunka wadankan uu ka baqaya qaanuunka wadankan ayaa ilaalinaya bal sheeg kamera ilaalinaysa kamerada meel walba ku rakiban haddii kamera la dhaafana booliiska markiiba qabanaya qofkii labadaas shay baa markaa qaanuun wadankan loo dejiyey iyo nidaamka wadankan oo kamera lagu ilaaliyey iyo booliis meel walba taagan oo shaqada heegan oo rashwana aan qaadanayn loo heegan loo geliyey ayaa boqol dadku nidaamka wadankan ku kala socdaan waa nidaamkii bini aadanku samaystaa sida u ilaalinaysaa nidaamkii ilaahay samaysay maxaad u ilaalin weyday nidaamka ilaahay waxaad u ilaalinayn waxa weeyaan ee ilaahay maanta aan dadku u caasinayaan dad badan u caasinayaan ee salaadii u dhib yaraysteen ee gabdho badan ee xijaabkii ay u daadiyeen dhulkan markay yimaadeen ay diintii u dhigeen ee dhalinyaro badanna waxay doonaan ay u samaynayaan waxa weeyaan nidaamka ilaahay awoodda uu leeyahay baa qalbigaaga ku jirin bay ka dhigan tahay walaakin dhagayso ويوم يحشر أعداء الله إلى النار ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون إلهي بقرآن كأنه قشق في سورة فصلت وحول مالين باصوص سعوتا أعداد إلهي عز وجل نار تحق يدا الله سورين دونا أيكم ملائكة حق دمائك قراء عيسو مرقاسا بنك قياما لكين دونا مرقاسا وحا مرقا كبوحين دونا با إلهي مقال كودي
baa maraga ku buuxin doona aragoogii baa maraga ku buuxin doona jirkoodii harigoogii baa maraga ku buuxin doona markaasay odhani doonaan marka naarta lagu wada guro ee afkii xidhnaana loo furo bay odhan doonaan annagu ininkaani badbaadinayne oo naarta inaad ku dhacda niga badbaadinaye buu afkii leeyahay maxaad maraga iigu buuxisan maadi qarisaana markaasaa gacantiiyo lugtii baa hadlaysa oo ishiiyo dhegtii baa hadlaysa odhan doonta annagu iskamanu hadline ilaaha wax waliba ka hadliyey ayaa naga hadliyey bay odhanayaan waliba isagaa marka hore ini abuuray biyo yar buu inaga abuuray waana kaad xaggiisa u noqonaysaan baa lagu odhanayaa haddaad kamerada bini aadamku ay samaysteen aad ka cabsanayso ilaahay ku abuuray aad ka xishooni weyday waxaad doonto aad eegayso waxaad doonto aad ku hadlayso sidaad doonto aad u soconayso waxaad ogaataa maalin baa soo socota kamerada kugu rakiban oo dhan laga warrami doona ogow dhegtu way warrami oo maxay sheegi dhegtu waxaad ku dhegaysanaysa bay sheegi ishaadu way warrami oo maxay warrami doontaa waxaad ku daawanaysa bay sheegi doontaa harigan uu warrami doonaa harigan muxuu sheegi doonaa wuxuu ku koray xaaraan baa mise oo xalaal uu sheegi doonaa jirku beentuna waxay iska noqotay mashruuc lagu shaqaysto lagu foofo ka run sheegana zamankan waxaa loo arkaa wadaad ka beenaalahana waxaa loo arkaa waa reer magaal ninkaas waa nin reer magaala bahal inkaaran bay yidhahdeen qolada reer jigjiga inkaaran fahamta maalin baa imani doonta waxaasoo xubno bini aadan oo jirhkeenna ku jira warka ay sii dayni doonaan halkee loo baxsan doonaa maalinta bal ii sheeg alyawma nakhtimu calaa afwaahihim watukallimuna aydiihim watashhadu arjuluhum bima kaanuu yaksibuun afkana laga qabani doonaa baa ilaahay yidhi gacantiya lagu hogaa ka warrami doonaa baa ilaahay yidhi cabsidii allahu rabbulcaalamiin cabsidiisii markay inagu yaraatay ayaa dhacday dad badan oo muslimiina inay been iska sheegaan inay wax walba ka shaqeeyaan inay wax walba daawadaan inay wax walba dhegaystaan inay siday rabaan ay u socdaan taasaa keentay markaas cabsidii ilaahay markay qalbigeenna ku yaraatay qalbiga shaakirku waxa weeyaan waa qalbiga labada sifo xambaarsan bay culimmadu leeyihiin alkhawfu waalrajaa waa qalbiga ay ku jirto cabsida ilaahay baa qalbiga ku jirta marna maaragtaane rajada ilaahay baa qalbiga ka buuxda marna uu cabsoonayaa oo ilaahay qabashadiisu ka cabsanaya ilaahay cuquubadiisu ka baqaya ilaahay xisaabtiisu ka baqaya ilaahay la kulankiisu kusii talagaluu ka baqaya marna waa muumin weeyaano rajaaga haalib u ah rajaayo naxariista ilaahay buu rajaynayaa ilaahay jannadiisii buu rajaynayaa ilaahay naxariis badana inuu yahay buu garanayaa ilaahay dembi dhaafe inuu yahay buu garanayaa cabsidana qofka muslimka waxaa laga rabaa waa intanuu caafimaadka qabo weeyaan rajadana waxaa laga rabaa waa markuu dhacu bukoodu xanuunsada laga rabaa inuu rajadu soo baxdo intaad caafimaadka aad hayso ee dhallinyarada aad tahay eed amniga aad haysatid ee arsaaqada aad haysatid waxaa la doonayaa inaad ilaahay ka cabsootid maalinta da'daadu ay weynaatee 70 aad gaadhid ama 75 aad gaadhid ee dhinac walba lagaa qaabtay xanuunku uu bato eed haddeetoola aad dhinaca dhulka dhigtidna waxaa la doonayaa inaad tidhaahdid allah ilaahay baan haystaa ilaahay waa kariim rabbi kariima oo raxiima oo ghafuura oo shakuura oo cafuw ilaah kariima oo dhaafid badan oo naxariis badan ayaan u tegayaa inaad tidhahdid baa loo baahan yahay cabdillaahi bni mascuud radia allaahu canhu ayaa sankaraadkii markuu xanuunsaday cuhmaan binu cafaan baa u yimid markuu cabdillaahi dhulka uu ku dhacay markaasuu soo buuqday baa laydho wuxuu ku yidhi maxaad ka cabanaysaa bal ii sheeg halkee kuugu daranoo maxaa kuu haya oo macnaha halkee kuugu daran markaasuu meesha iigu daran ma kuu sheegaa dunuubtaydii baa iigu daran buuhi dunuubtaydii innaka maanta qofku markuu xanuunsado ee la yidhahdo halkee kuugu daran muxuu sheegaa meesha laga hayuu taaban halka osa layga haya halkaa kalaa layga hayaa
cabdullaahi ibnu mascuud meel xanuunaysa ma sheegin, waayo baahidooda makhluuq uma sheeganayaan. baahidooda ilaahay bay u sheegtaan, makhluuqa baahidooda way ka qarsadaan, baahidooda ilaahay bay u sheegtaan. walaakiin wuxuu yidhi meesha iigu daran waxa weeyaan waa dunuubtaydii. famaa tashtahi buu ka yidhi, maxaad haddana naftaadu ay jeceshahay? qofku markuu xanuunsan yahay waxaa la yidhi war naftaadu maxay doonaysaa bal noo sheeg. markaasu caano yarii keena ba odhan, khudrad yarii keena, bariiskan iga qaado. walaakiin cabdullaahi ibnu mascuud wuxuu yidhi waxay nafsadaydu ay doonaysa maanta waxa weeyaan waa ilaahay naxariistiisa. ilaahay naxariistiisaan doonayaa buu yidhi. meesha iigu daranna waxa weeyaan haddaad i weydiisay waa dunuubtaydii. ninka hadalkaa ku hadlaya waa ninkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ninkii doonaya qur-aanka siduu ku soo degay inuu ku akhriyo, cabdullaahi ibnu mascuud siduu u akhriya qur-aanka u akhriya buu rasuulku yidhi. waa ninkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisu markay arkeen cabdullaahi ibnu mascuud oo geed kor saaran, lugihiisu luga yaroo dhuudhuuban bay ahaayeen, ayay ku qosqosleen. markaasuu nebigu ku yidhi maxaad ku qosasheen bal ii sheega, ma lugihiisaa yare miiqmiiqan baad ku qosasheen? wallaahi baan ku dhaartee buu nebigu yidhi, buurta jabaluluxud haddii miisaanka kafad la saari lahaa, lugahaa yare cabdullaahi ibnu mascuudna miisaanka kafadda kale la saari lahaa, lugaha cabdullaahi baa ka cuslaan lahaa buu rasuulku yidhi. laanna iimaan baa ka buuxa, macrifada ilaahay baa lugihiisa ka buuxda, qur'aan baa ka buuxa, fahmi diina oo saxiixa ayaa cabdullaahi ibnu mascuud qalbigiisa iyo dhuuxiisa iyo dhiiggiisa iyo dheecaankiisa ka buuxa. maxaa yeelay waa raggii ugu horreeyey ee nebi maxamed rumeeyey buu ka mid ahaa, allah raalli ka noqdee. kaasaa cabsanaya oo kule waxaan ka baqayaa in laygu qabta maaragtaan dunuubtaydii. waxaan doonayaa oo nafsadaydu ay doonaysaa waa ilaahay naxariistiisa. allah inuu dambi dhaaf, qalbi shaakir allah ina siiyo. qalbi mahadnaqa, walisaanan dhaakiran, iyo carab dhaakira oo xuska ilaahay ku qoyan mar walba. carab uu yar yahay laakiin acmaal waxa uu soo tuurayaa, marna jannada aad ugu dhowaanaysid, marna aad naarta ugu dhowaanaysid. isla carabkan unbaa marna been sheega, marna runta sheega, marna ilaahay buu xusaa, marna hadal macsiyo ayuu ku hadlaa, marna dadku caayaayo naar baad ku gali cayda bini aadanka aad caayaysid, marna dadku wanaag u sheegaayo wanaagga ummadda aad u sheegaysid jannaad ku gali. isla carabkan weeyaan. marka carabkeenna waa inaan ku qoynaa ilaahay dikrigiisa. saxaabigii nabigeenna u yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi sharaa'icdii islaamka igu baahdee camal aan qabsada nebi allow ii sheeg buu ku yidhi. laa yazaalu lisaanuka radbun bidikri illaah, yuuna ka tegin carabkaagu inuu ku qoyanaada mar walba ilaahay xuskiisa buu nebigu ku yidhi. marka dikru lisaan baan u baahannahay inaan barna carabkeenna. dikru lisaan, subxaana allahi wabixamdihi haddaad mar tidhaahdid geed timiraa jannada lagaaga beeri. istikfaar haddaad la timaadid dembigii oo dhan baa ilaahay kaa dhaafaya, gafafkaagii oo dhan baa loo bedelaya xasanaad. adkaartaana waan badsanaynaa, salliga nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo istikfaarta iyo adkaarta maaragtaane masnuunada nabigeena laga soo wariyey waan badsanaynaa. alaa adulluka biaxabi alkalaami ila allah, abu dar alkhifaari buu nabigu ku yidhi ma ku tusaa camalka ilaah agtiisa loogu jacaylo badan yahay. ina axaba alkalaami ila allahi subxaana allahi wabixamdihi, waa cibaadada qowliga ta ilaahay agtiisa loogu jacaylo badan yahay buu nabigu yidhi waa cibaadadee, waa subxaana allahi wabixamdihi. dikriga ilaahay badi,
caaisha radiyallahu canha waxaa kaloo inoo sheegtay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam noloshiisa inta u badan dikri buu ahaa. dikru jawaarixna waa maxay? hadduu nabigu maskiid soo galayo duca la akhristuu lahaa, iyaduna waa dikri. hadduu masjidka ka baxayo duca la akhristuu lahaa, hadduu aqalka galayo duca la akhristuu lahaa, hadduu aqal ka soo baxa duca lagaga soo baxa buu lahaa, hadduu suuqa maro duca lagu maro buu lahaa, hadday bil soo bilato bisha arka duca la akhrista buu lahaa, hadduu dhar xidhanayo duca la akhrista buu lahaa, hadduu reerkiisa la seexanayo duca la akhrista buu lahaa, hadduu gabalku dhaco duca la akhrista buu lahaa, hadduu soo kaco hurdada ka soo kaco duca la akhrista buu lahaa, hadduu waagu baryana duca la akhrista buu lahaa. yadkurullah, nabigu ilaahay buu xusaayo noloshiisoo dhanba. marka noloshiisoo dhan taacay ahayd. kullu mutiicin daakir bay culimmadu yidhaahdeen. qof kastoo ilaahay adeecsan waa daakir. dikrigu kan carabka keliya maaha, ducooyinka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka soo arooray oo dhan ku soo arooray sunnadiisa waa inaan baranno. imaam nawawi raximahullah kitaab dhan buu inoo qoray, la yidhaha magaciisa kitaabul adkaar. adkaartaasaan akhrisanaynaa. adkaartu waa xisn, adigay ku ilaalin, waa dhufays. haddaad dhufayska ku dhacdid shaydaanka waad ka nabad gashay, xasadka waad ka nabad gashay, saxarada sixirkooga waad ka nabadgali, gaalada iyo maaragtaane sharkooga waad ka nabadgali. waxaad noqonaysaa qof maxfuuda oo xagga ilaahay laga ilaaliyey baad noqonaysaa haddaan adkaarta akhrisanno. bal xadiiska akhriso uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, qofka gurigiisa marka uu ka baxayo ducada akhrista: bismi illaahi tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ila billah, yuqaalu lahu hudiita wa kufiita ووقيت وتنحى عنه الشيطان. ninka aqalkiisa markuu ka baxayo buu nabigu yidhi ducada akhrista. waa ducadee? bisinka ilaahay baan aqalka kaga soo baxay, tawakaltu cala allah, ilaahayna talada waan u dhiibtay, laa xawla walaa quwata ila billah. xeelad aan macaasida aan kaga leexdaan anigu ma lihi, awood aan taacadda ilaahay ku qaban karaana ma jirto ilaa ilaahay oo doono mooyaane. ninka ducada akhrista buu nabigu leeyahay, malag baa u yidhaahdaa hudiita, waad hanuuntay, wa kufiita, wixii adduunyada xaajaad iyo baahi kaaga daadsanaayoo dhanna waa laguu qabto, waa laguu daboolay, oo baahidaadii cid kalea kuu qabatay. wa uqiita shar iyo masiibo iyo balaayo wixii adduunka maanta loo qadaray bini aadankana adiga waa lagaa leexiyo, waa lagaa ilaaliyey. shaydaankiina meeluu ku soo mara ma jirtaa lagu yidhaahdaa. bal ducadaa ka warrama. waddankan intaan maraynay dad badan baa masaajidda lanoogu keena ubad yaryar oo dhakhtarradu ay yidhaahdeen xanuunkooga garan mayno. dhakhtarradii waddannadan iyo jarmalka meel walba dhakhtarradii intoo lala soo maray ayaa la yidhi kan adeer ma garanayn, xanuunkiisa iska haysta. sunnada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadday muslimiintu qaataan ay ku dhaqmaan, balaayo badan oo dadka ku dhacaysa ilaahay waa ka ilaalinayaa. laanna sunnaha nebiga qofka ku dhaqma dhufays buu kaga dhacay shaydaanka iyo sharkiisa. lidaalika adkaarta nabigeena han baranno insha allah dhahda, han ku dhaqanno, weliba khaasatan dadkeena waddankan jooga, bidaat dadka waddankan soo galayow adkaarta isku ilaaliya. qul wallaha iyo mucaawadateenka salaada maqrib markii laga baxana saddex jeer akhrista, bacda salaat alfajrna saddex jeer akhriya, salaad kastoo farada marka laga baxana hal mar akhrista. habeenkii markaad jiifanaysana kitaabkan xisnul muslim waa kitaab xajmigiisu uu yeer yahay, laakiin macaanin weyn buu xambaarsan yahe. kitaabkaa yar intood la soo baxdaan xaafadaha dhigoo dumarkana ha la baro, ubadkana ha loo akhriyo, aqalkana aayatal kursiga ku akhriya. habeenka markuu qofka muminku jiifanaya buu nebigu yidhi aayatal kursiga qofka akhrista hee habeenkaasoo dhan waxaa ilaalinaya buu nebigu yidhi maaragtaane xaafid waa lagu ilaalin, malag ba ku dul taaganoo ku ilaalinaya. shaydaanku meeluu kuu soo mar heli maysid. marka carabkeenna carab daakira allaha ka dhigo. dikrigu iimaankana uu quweeyaa. calayka bidikri illaahi wa tilaawati alqur'aan fainahu dikrun laka fi lsamaa wa nuurun laka fi lardi buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. yaa abaa dar, waxaad ku dadaashaa ilaahay xuskiisana badso, qur-aanka akhriskiisana badsa buu nebigu ku yidhi. qur-aanka akhriskiisa laazim,
arladana wuxuu ku noqonayaa quraanka iyo dhikriga aad badsatay dhikrigaas wuxuu ku noqonayaa nuur iyo iftiin buu ku noqonayaa samadana waa laga hadalhayn buu rasuulku ku yidhi samada ayaa ka hadalhaynaya allahu rabbul aalamiin fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun ilaahina abuuray baa inagu la xusa oo ay hadalhaya mar walba aniguna waan hadalhaynaya haddaan ilaahay mar walba aan hadal qaadno oo gaarigaad fuulaysa aad ku hadal qaado gaarigaad fuushay gaarigu dhikri buu leeyahay subhana alladhi sakhkhara lana hada wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun markaad ka daadigeysana ducadii aad allahumma anzilni munzalan mubarakan wa anta khayrul munzalin a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq haddaan ducooyinka baranno waa sunna nabi maxamed ka sugnaaday weeyaan nolosha oo dhan waxay noqonaysaa cibaado ku noqon noloshaadu gaariga aad raacday marka sunnaha ku raacdo cibaada lagu qorayaa jiifka aad jiifatay haddaa sunnihii nabi maxamed ku jiifatid cibaada lagu qorayaa cuntada aad cunayso haddaad sunnihii nabiga aad ku cuntayso cibaada lagu qorayaa geerida nagu dhacday haddii sunnihii nabiga la waafajiyo cibaadii ajar baan ka helaynaa arooskaaga haddaad sunnihii nabiga ku dabaqdo cibaada lagu qorayaa habeenkii reerkaaga markaad la jiifanayso haddaad sunnihii nabiga intood culummada weydiisid aad kula jiifatid ajar iyo sadaqa lagu qorayaa tarbiyadda awlaadaada haddaad diin ku tarbiyadaysid ajar iyo cibaada lagu qorayaa noloshoo dhan waxay noqonaysaa cibaada ku noqon noloshaadu laakiin haddaad iska noolaato bilaa sunna waxay ka dhigan tahay caada ku nool baa tahay caada ku nool caadadana ajar lagaagama qorayo ogow inagu maanta dad badan oo muslimiina diin waxay u fahmeen salaada masjidka ay soo galayaan tukanayaan salaadu waa bidaaya waa meesha diinta islaamka laga bilaabo weeyaan meesha ku dhamaata maaha diinta islaamku waa dhaqan ka bilaaba aqeedada kuna dhamaada akhlaaqda wanaagsan ogow عقيدته كبلامة إيمانك يتوحيد كي دين الإسلام كي كبلامنتا ماشي كل ما تنا وطبيعته ونكسن بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه السبيل حديث وحو تلماما يا بنيان ابتداء تلماميا وماشي دين الاسلام كاي كبلابتay sense marka aqalka la shubo kaabadaha la dhisay buu ka bilaabay nabigu buniya waa rukunada islaamka weeyaan islaamku ku taagan yahay xadiiskana nabigu waxa uu sheegay bu'ithu li utammima makarim al akhlaq aniga adduunka waxa la ii keenay buu nabigu yiri akhlaaqda teeda ugu wanaagsan ina nolosha bini'aadamka ku soo dhameystiro marka diin baa loo baahan yahay ummad diin ku dhaqmaysa inaan noqono diin haddaan ku dhaqanno nolosheenu nuur baa noqon nuur calaa nuur nuurun calaa nuur baa noqon laakiin haddaad diin la'aan aad ku socoto noloshaadu waa khaflad waxaa laga yaabaa markaa dhibaatooyin fara badan inaad noloshaada halis u gelisa laga yaabaa markaas allah ina siiyo وبدنا على البلاء صابرا بالنبي يقول وبدنا على البلاء صابرا ونعمة صدحات قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا بالنبي يقول قفك إلهي أوسيي نعمة صدحات بالنبي يقول ونعمة داس وقفك إلهي أوسيي جد بلا يد حق الله وقت ما دعو أتكيسي بدن حنون هدو كل سو درسو ده إلهي باكو كان أتكيسو فقري هدو كل سو درسو ووحكو قدرناي أتكيسو مشاكل هدي كل سو درسان ووحكو قرناي اسكا أتكيسو وماشا قال كي مسلم كو كلا وعدان ويان قال دونا وحن سدي ودعين بوليهي مسلم كنا وحا وليهي واي قرناي دارنتاني هروغا سعو واي قدرناي لما باجين كرين dad badan maanta markay qadarka ilaahay ay garan waayeen ee fahmi waayeen zamankii aflagaadayaan waqtiga sida ii galay soo yidaahdaan yu'dhini ibnu aadama ولم يكن له ذلك يسب الدهر وأنا الدهر الأمر بيدي أقلب الليل والنهار با إلهي الحديث القدسي إن آدم با إدبي با إلهي وصدين آدم إدبي زمنكو أفلقادين يا
zaman maaha zaman waxa waxba bedelaye ilaahay waxa uu leeyahay amarku aniga gacantaydu ku jira habeenkii maalinta aniga keenaya nolosha adduunka aniga marka gadinaya baa ilaahay yidhi marka waxbad zamanka yaanan afka lagu taagine zaman sida ku galayna ma jiro dad badan oo muslimiina maanta waa ku hadlaan erayadaas waqtiga halka ay dhigay waqtiga aniga iga jeestay ree hebel hadaatiin waqtiga inila haya waqtigiiba kor inii qaaday waqti kor kuma qaado adigana kana kor uma dhige ilaahay baa azza wa jalla dadkiisa inna kor buu u qaadaa inna hoos buu u dhigaa in maalqabeenu ka dhigaa in fuqara masaakiina buu ka dhigaa in xanuun buu ku ridaa in caafimaad buu siiyaa in ubadku ka qabtaa in ubadka loo ballaadhiyaa in ilaahay waa cizeeyaa inna ilaahay waa duleeyaa inna ilaahay baa hanuuniyey inna inay luntay halowda ilaahay baa ugu talagalay waa maqaadiir weeyaan qadarka aamin waxaad noqotaa istislaam الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة وأساسيات كالتوحيد كويان إنه قفك إلهي اسكو ديبو وحي طاعة إلهي وفرين ولي مادو واتقفك مسلم كعقيدتي سيكون لسنتها هذا الددالية وشقيسنا يا قدر كآمن هذا ازدوين يودودي استعماليا قدر كآمن هذا شقيسنا يا حوكسنا يا قدر كآمن هذا فعلك اللي يمدي هذا قدر كآمن قدر كان لقى تجي مايو شقدا إيه أسبابتنا لقى تجي مايو وأنا لابد أصل السعودان marka adkaysi waa inaad noqotaan qof muslim oo dhibaatada u adkaysanaya dad badan oo muslimiina maanta way adkaysan waayeen kuleyl waan adkaysan weynay gaajeer waan u adkaysan weynay dagaalla yar oo mar ina soo maray waan u adkaysan weynay dhib kaliya ka soo baxsadeen dhib kaliya oo leeyahay colaad bay ka soo baxsadeen laakiin boqol mashaakil oo aan la garanayn bay maanta cagaha la soo galeen waxa ka dhacday inaan yaa harigayga celiyo maanta ما شيء يا هريج يقعليه يا نبى تولا يربو دجنا قاري مركا مقالة كصوب حين مقالة كلا أسعدا أيا صومرة نكا أرجع يربو هسه أرجير وحو فوني أنا برجع مجرين يا تلفون مجرين لكن وحو عدو يكتحل بابور ماشي وصومرة يي وضد كابو كأي مجرى مركا عنتضا بابور كيف عد إحنا كل جماعة مركا أرجع كلي ولا هان أو قليب الليدي halkan uu yaalaayo markuu baabuurkii uu waayay orgi ayaa ka cun hilibkii intii leeka ayaa wankii harigayga celiyay buu yidhi dadkii maanta halka dhulkan u soo qaxay oo dhan waxay marayaan calaacal arayaa dalkayga nabadu nooga dhigo mar nagu celiya dalkuna de waa nabada ogaada hada dhibaato ma jirto dhibaato waxaa jira kuwa idaacadaha journalistiska iyo jaraa'idadu ay buunbuuniyaan wax weyn ka dhigaan mooyaane dhib ma jirto dhulkan dadku ay u yaaceen baa ka dhib badan dadka dhulkii joogay gaalnimo looga baqi maayo laakiin dadka dhulkii ka soo baxay ee dhul gaala tagay oo iyo kuwa muslimiin waa run la ubadkay gacanta hayeen la yimaadeen waa muslimiin waa run laakiin kuwa dhali doonaan iyo kuwa si dhali doonaan ilaahay baa ogsay ku dambeyn doonaan لكن حالته وحلس ويان أتكيس بقى قفك مسلم كان لو جاب هيا إنه أتكيسته إنه أتكيسته صبر لا أنت وحي كأنه سامركا دباتته كسو أرضي دباتوين كوا وين قفك إنه كل عمركاس marka wixii ilaahay noo qadaray raalli baan ku nahay gabadhii xabashiyada reer Madiina ahayd ee nabigeena u timid calayhi salaatu wasalaam waxay tiri yaa rasuulullah waan suuxdin baan qabaanu oo jidadkaas aan ku dhacaa dadna markaan jidka aan ku dhacana ma aragtaan marada ayaa iga fiidanta ii ducee ilaahay inuu caafimaad siiyo markaa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri hadaa doonto waan ku ducayn ilaahay inuu ku caafiyana waan ku weydiin hadaa doonto waad u adkeysano waa sabriyo جنة كوبل قادم ونبي يقول جنة كهلي بودي حنون كاس ويودتك الصبر أتكيس الجنة إليهين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب دتك أدوية دوشيد اللقو ابتلايو أدونك دوشيد اللقو امتحانك هو أتكيس الصبر
ajarkoodu waa bilaa xisaab baa ilaahay yidhi janna ilaahay siinaya tabaaraka wa tacaala abaalka lamala janno mooyaane markaabuu nebigu gabadha u bandhigay labadaa shay inuu isla markiiba u duceeyo oo caafimaadu ilaahay u weydiiyo ducada nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam waa mustajaabo ducada nebigu ma soo noqoto ilaahay ducada nebi maxamed markiiba waa aqbalaa iyo inay xanuunka u adkaysato oo ay jannaha dhow ku hesho markaasay isku noqotay way soo fikirto waxay aragtay in adduunyadu ay nolol meel ka bilaamaysa meelna ku dhammaanaysa inay tahay aakhiraduna inay tahay nolol bilaami doonta oo dhammaad aanan lahayn oo xaqiiqadu adduunyadan ay ahayn xaqiiqadu aakhirada tahay maadaama sidaa u fahamtay way soo noqoto nabiga u timid oo waxay ku tiri yaa rasuulallah xanuunka haye iska dhaaf bay ku tiri laakiin janno ilaahay ii weydii midna iiga ducee bay ku tiri meeshaan doonahan ku dhaca bay ku tiri yaana maradu iga qaadmino yaana cawradeeda la arkin ilaahay intaa ii weydii bay ku tiri xishood ku cajiibsan ah laana xishoodkii iimaanku way wada socdaan ogow haddii iimaanku nuqsaani soo gaadha bay culimmadu leeyihiin xishoodkuna uu nuqsaamaya haddaa gabadha muuminadda iimaankeedu uu biirana xishoodkii u biiray ogow haddaad aragta gabadh muslimad oo bilaa xishood oo bilaa xayaaya dhaawac nuqsaan aliimaan baa ku jirta nolosheeda ogow ducfaliimaan baa ku dhacay way bugtaa halkan ay ka bugtaa qalbiga ilaahay abuuray bay ilowday aakhirada u socotay bay ilowday hadafkii nolosheeda laga lahaa bay ilowday xisaabi inay sugaysa bay ilowday janniya naar inay dambeeyaan bay ilowday taasaa markaa u keenay markaa inay noqoto bilaa xayaa taasaa keentay markaa inay noqoto bilaa xayaa lidaalika gabadha madow xanuunkuna maaha madax wareer iyo maaragtaanay xumad iyo garaac maahina waa qalal jidhka dhan baa dhacaya jidhka dhan miyirka dhan ayaa tegaya deedna markaasay waddada ku dhacaysa intay ay saacadoodee maqnayd wixii dusheeda ka dhacay kama warqabto xanuunka sidaa u daran ee gabadhaa hayay ayaa markuu nebigu yidhi janno ayaad ku helaya adkayso ayay tidhi haddaan janno ku helayo iska daabay ku tidhi yaa rasuul allah jannaday ku xisaabtamayeen inaguna maanta adduunyadaan eegaynaa adduunyada waxaan eegnay meesha maaragtaanay tacliin ubadkeennu ay ka helayaan caafimaad ay ka helayaan nabadgelyo ay ka helayaan hadhow shaqo ay ka helayaan ay ku yar cayilayaan intaasaan eegnay deedna maanu eegin dadkan aakhiradoodii iyo diintoodii siday noqon doontaa yaa muslim ukhtilmuslima meel dheer wax ka arag ha noqon qof leh ha eegin nolosha adduunyada waa inaad eegtaa tani way dhammaan aakhirana waa la isweydiin doonaayo ogow awlaaddu waa nicmado waa lagu weydiin doonaa arsaaqadaan cunayna waa nicmado waa layna weydiin doonaa islaamnimada waa nicmado waa lagu weydiin doonaa 4 shay baa qof walba banka qiyaama lagu weydiin doonaa cimrigii muxuu ku soo dhammeeyey dhallinyarnimadiisii muxuu ku soo gaboojiyey arsaaqada uu cunayey halkay ka soo gashay halkuu ku bixinayey cilmigii ilaahay barane muxuu kaga camal falay qofku waa la weydiin doonaa waa layna weydiin maxaan ilaahay la hortegaynaa markaas gabdhihii reer madiina allaha raadi ka noqdee caafimaad baa nebi maxamed ducadiisu waa mustajaaba hadduu gacanta kor u qaaduna ilaahu gabadha caafimaad hadda sii ilaahay caza wajalla waa siinayaa markiiba laana ducada nebigu waa mustajaabu dacwaat caliy ibna abi taalib baa nebiga loo sheegay inay indhuhu xanuunayaan iigu yeedhay buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam qandhuuftiisii barakeysnayd buu nebigu indhaha uga tufay indhihii markiiba cali binu abi taalib way bogsadeen markiiba mubaarak buu ahaa nebi mubaaraka carabkiisaa ilaahay barakeeyey gacantiisaa ilaahay barakeeyey qandhuuftiisaa ilaahay barakeeyey hadalkiisaa ilaahay barakeeyey sala allahu calayhi waaalihi wasaxbihi wasallim kaasay u timiday ku leedahay ii ducee markaasuu nebigu ku yidhi haddaad u adkaysato jannaad ku heli iska dhaafay ku tidhi sidayda igu dhaaf waxay arkaysa innagu maxaan u arki weynay
dalkaad aan ka imanay innaku waa run xagga jirka dadku kama korayn laakiin caqligay ka korayeen waddannadan qurbehe dadkeennu u soo hijroodeen waxaa dadku ka koraan waa jirka caqliga kama koraan isweydaar waa bilcagsi qolofta sare laga korayaa laakiin caqliyan iyo ruuxiyan lagama koraayo dhulkaan ka imanayna dadku caqliga ka koraan caqliga ilmaha 6 jirka 5 jirka ayaa hooyo xaqeeda garanaya aabba xaqiisa garanaya adeer xaqiisa garanaya inanka jaarka xaqiisa garanaya qaraabadiisa yaqaan cidda yihiin iyo cidda qaraabadiisa aan ahayn kala yaqaan yani mujtamacu dhex jooga tarbiyada baraya dhaqan baa iska jira diineeda moogta oo dalkeena ka noqday caado dadku ay ku dhaqmaan sabir la'aantii waxayna baday in dad badan maanta dhibaato ay ku dhacaan muslimku uu adkaystaa uu sabraa jirkaaga waa inuu ahaadaa jir adkaysi badan gaajada u adkayso xanuunka u adkayso masiiba hadday adduunyada kugu dhacda adkayso ha degdegin ilaahay caza wajalla waa sabuur ilaahay baa ku jecel qofku ilaahay jecel yahay uu ikhtibaaraa ilaahay cilaqa la yeelo weliba qofka muuminka baa la yidhi markay dhibaata ay la soo daristo waa marka la doonayo ilaahay inuu u dhowaado waa markii loogu talagalay inay ducadiisu ay noqoto duca ruux leh quwad leh qofka haddayna dhibaata ku dhicinba ma garanayo ilaahay dhibaata inay kugu dhacdaa waxa weeyaan waa marka ilaahay la barto weeyaan ilaahay bannaanka loogu baxo marka jirkeena jir adkaysi badan Allah ka yeelo wa zawjatan bu nabigu alayhi salaatu wasalaam nicmada afraad bu nabigu ka hadlo wuxuu yiri ninka qofka ilaahay uu siiyay gabadh wanaagsan bimacna waa gabadh wanaagsan weeyaan gabadha ninkeedana aan khiyaamaynin wuxuu u dhiibtana amaanada u haynaysa waa gabadh saalixada weeyaan nolosha adduunyada dhanna waxa uu nabigu ku sheegay inay tahay mataac raaxa yar nolosha adduunyadu waa raaxa yar buu nabigu yiri waa mataac nolosha adduunyada raaxadeeda ninka helay buu nabigu yiri waa ninka ilaahay uu siiyay gabadh wanaagsan gabadha muuminada ee saalixada wanaagsan ayuu nabi maxamed ku sheegay inay tahay jannadii dhaneed ee adduunyadu waaba iyadaba ficlan nolol wanaagsan ninka haysta waa ninka gabadh wanaagsan haysta xuquuqda haweenkana diinteena islaamku kor bay u qaaday kor islaamnimada waxaa nabi maxamed la noogu soo dhiibay qabaa'il carbeed qaarkood hadday inan u dhalato inanta u dhalatay dhalashadeeda way ka naxaan waxaa kale lagu arkay oo carab lagu yaqaanay qabaa'ilka qaarkood ninku islaanta aabihii uu ka dhintay waa aayadii halka inaku aan idhaahno weeyaane ayuu guursan jiray baa la yidhi shariicadda islaamku way xarimtay shariicadda islaamku waxay timiday ayadoo 2 hablood oo walaalo ah uu ninku wada guursan karo shariicadda islaamkuna way xarimtay ugu khatul ahmar bay ka dhigtay khadka laba taabtaanka bal nabigeenu alayhi salaatu wasalaam waa kiilaha ninka 2 hablood ilaahay uu ku deeqay 2 hablood ninkay u dhalatay ee 2 hablood kursiiyay ee kursiintooda wanaajiyay ilaa gabdhahaasi ay ka qaangaadhayaan aniga ninka jannada sidaasaan isku nahay buu rasuulku yidhi 2 wiil nabigu ma sheegin 2 gabdhood buu nabigu sheegay 2 gabdhood limaada gabdhuhu ragga way ka naxariis badan yihiin way ka jajaban yihiin waa khaadimad iyada khidmaynaysa mar waa inantaadii mar waa walaasha mar waa xaaskaadii mar waa hooyada mar waa ayeeyada gabadhu marna ma aragtaan cidla kuma dhacayso mar waa eddadaayo aabbay la dhalatay mar waa habaryaro hooyay la dhalatay mar adiga waa walaasha mar waad u dhaxdo waa xaaskaagii mar waa inantaad dasho dhabtay kaaga fadhiisanaysaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam safar markuu ka yimaado waxa uu nabigeenu safarkiisa markuu ka soo noqdo uu ka bilaabi jiray ma aragtaan masaajidkiisu ima jiray 2 ragcoo ku tukan jiray masaajidka kadibna aqalada xaasaskiisa intuu nabigu una tagin waxa uu nabigu tagi jiray aqalka inantiisa Faatimo ku horin jiray maxayalkana tusinaya uu nabigu na baraya gabdhuhu nabiga agtiisa qiimaha ay ku leeyihiin
bal aniga waaba la jeclaysiiyey buu nabigu yidhi ilaahay baaba igu beeray buu nabigu yidhi muxuu kugu beeray saddex jacaylkooda la igu beeray buu yidhi dumarka waa xaasaskiisa ilaahay baa jeclaysiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam haweenka nebi maxamed uu qabay mid walba haddii la odhan lahaa nebigu dadka ayuu ugu jeclaa mid walba waxay dhihi lahayd nebigu anuu xaasaskiisa igu jecel yahay limaada laana nebi maxamed akhlaaq wanaagsan baa ilaahay siiyey dhaqanka wanaagsan ee nebigeennu uu qabay ayuu nebigu reerihiisa ku wada raalligeliyey haweenka ayuu nabigu sheegay yiri dumarka ilaahay baa aniga jeclaysiiyay yiri xaasaskayga bal Amr ibn Aas Allah raali ka noqday ayaa maalin saxaabada dhexdeeda markay kaftamayaan ayaa lagu yiri nabigu saxaabada ayuu ugu jecel yahay markaas anigu igu jecel yahay markaas warmay kada anigu igu jecel yahay oo weydiinba salaadii markii laga baxay buu istaagay yaa rasuulallah alayhi salaatu wasalaam saxaabadaada ayaad ugu jeceshahay bal ii sheeg markaa buu nabigu Aisha ugu jecelahay buu inagu miskiin dhexdeeda ninku inuu yiraahdo xaaskaygaas aan ugu jecelahay dadka waa ka xishoon Soomaa nabi maxamed kama xishoon uu sheegay qadarka haweenku ay leeyihiin buu nabigu saxaabadiisa tusinayay Amr ibn Aas baa xishooda uu yaabo wuxuu yiri haweenkaaga maaha ragga markaas aabaheed waa kuma Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ardaa markaas uu yaabay Amr sib uu aamusay haddana yaa ku xiga Umar waaska aamusay buu markaas la yiri weydii su'aasha wad may halkaas ku dhaafay oo maxaad u aamustaa lagu yiri ka ugu dambeeyo sheegay inaan noqdaan ka baqay buu yiri ka ugu dambeeyo sheegi lahaa وجعل النبي صحابتيسا لكن رجوا كلا سريين وجو عائشة صديقة رضي الله عنها أيضا فقارها كشيء نبي حاسس كسين ويده وجعليه دمركم ومصنع وورشد وحرق دونك السعودان أياك دلي علوش شدين نجوح قادان ناسوه قاسر مارتان لبسنا أما سنة يبرني والبهالكاس جلكيسي رزقيسي عاني يعندي وكعبايي وعي هو يدعو طول لعنايي ولي بقفك سكست هدو وين هذا هو يدي قفك سكما مار مكرئو سيدي تنجر هدو يحي ويدونا أي سقاشن أي تهي دقاقيسو markuu u yimaado iyada hayuu rogrogaayo iyadu isaga ka fikirayo waxay oran doontaa waa kano hamu maaragtana Saudigan weydoobay ma dharkan iska bedelo meen islaamaha ku khidmay bay ku oran doontaa subhanallah la ilaha illa allah hooyadu waa ajiib weeyaan lidalika xuquuqda dumarku ay leeyihiin lama soo koobi karaayo xaqina nabigu kaleey salaatu wasalaam meel saru gaarsiiyay laakiin waxaad ogaataa inagana xuquuq baa laynagu leeyahay raguna xuquuq baad ku leedihiin waxaan ku baraarujinaynaa mujtamaceenan ina qof kastooba qofka kale xaqiisa iska ilaaliyo intaad ilaalin karto wiilkuna maaragtaan xaaskiisa xaqeeda ha iska ilaaliyo inantuna ninkeeda maaragtaan xaqiisa ha iska ilaaliso khaasatan dadkiina qurbaha dhulka soo galay mujtamaca waxaan soo dhex galnay aan isku dhaqan ahayn mujtamacan dhaximana isku dhaqan ma nihin isku midab ma nihin isku luqa ma nihin kadalika isku dhaqan ma nihin isku diin ma nihin marka ayaa dhaqankeena islaamka ayaan laga tagin dhaqankeenu waa maguura lagama guuro asaga loo soo guuraya dadka caalamka maanta ku nool oo dhan dhaqanka la doonay in la gaarsiiyo waa dhaqanka islaamka waa dhaqanka maanta dhakhtarada caalamku ay kula talinayaan bini aadanka ay leeyihiin qofkii doonaya caafimaad inuu helo tacliimaadka nabi maxamed uu bixiyo raac bay leeyihiin waagi dhawada xanuunkan corona adduunyada uu ka dhacay xal waxa loo arkay in lagaga badbaadi karo xanuunkaas karantiilka ayaa bixiyay amarka nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam oo yiri hadaad maqashaan meesha taacuun baa ka dhacayna ha galina buu nabigu alayhi salaatu wasalaam hadaad joogtaan ha ka bixina buu rasuulku yiri taas xal loo arkay dhakhtaradii adduunka oo dhan intay isku wada tageen waxa xanuunkan dilaaga
ee adduunka ku faafaya xalkiisu waxa weeyaan inuu qof walba aqalkiisa u dhex fadhiisto aamuso meel fadhiisto uu edeb yeesho madaxa waxa uu ahaabaan u malaynayaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya waa dhagahagaasaan ku maqlaayeen isagoo muslimiinta la hadlaayo ku leh waana ciidii waana bishii Ramadaan is-ilaaliya xanuunkaana uu jiraa daawadana nabi maxamed baa sheegay buu 1400 sano ka hor wallahi hadalkaas uu yiri xanuunka daawadiisa waa inuu qofku gurigiisa fadhiyo buu yiri fadhiya qalladino nabi maxamed baa sheegay buu cilaajka adduunku xanuunka kaga badbaadayaan basharku maanta xaqan u soo socdaa dhaqankeennii baa lagu soo socdaa islaamka yaanan weydaaran ku sugnow diintaada dhaqankaaga islaamka muuji oo noloshii guriga xayaatadii guriga cishradii guriga ee labada qoys laga rabay inay ku wada dhaqmaan yaanan laga tagin gabadhana muslimadana waxaan leenahay hadduu ninkaagu uu maaragtaane kugu xumaada ka soo qaad oo sidii la rabay uu kula dhaqmi waayo ha degdegina sabir adkayso u ducee u nasteexee culimada la soo xidhiidho waxaa tiraahdaa war ninkaa iga qabto iga nasteexeeya salaada kuma fiicno akhlaaqdiisu ma wanaagsano ubadkiiyo reerka inuu burburiyuu doonayaa war ninkaa u nasteexeeyo ilaahay xaggiisa ugu yeedha oo diintii iyo masaajidda ugu yeedha dhahada hadduu kaa culimada ayaa lagu diraa qofka waa loona duceeyaa adiguna akhlaaq wanaagsan baa lagula dhaqmaa qofka walaalkaaya waayo raggu in fiicanna way leeyihiin runtii inaan fiicnaynna way leeyihiin in wanaagsanna way leeyihiinoo waa in salaadii diintii iyo cibaadadii iyo xuquuqdii reerahooga ilaalinaya ubadkoogii iyo reerkoogii ka warhayana way leeyihiin inaan xagga ku fiicnayna way leeyihiin gabdhuhuna waa la mid in wanaagsanna way leeyihiin inaan wanaagsanayna way leeyihiin laakiin ha milmin dhaqankaaga ha ka tagin haweenayda buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam uu ninkeedu u yeedho ninkeeda u yeedho u baahday ee iska diidda waxay waagu ka baryaya buu nabigu yidhi malaa'igta ilaahay baa lacnada buu rasuulku yidhi cadhada ilaahay ha isku bandhigin xuquuqul cibaad wax la yidhaha baa jira waxaa la ninkana addoommaha ilaahay xaqa ugu horeeya waxaa kule waa labadiisa waalid hooyadii aabihii baa kule xaas markay gabadhu ay noqoto baa la yidhi xaqa ugu horeeya ninkeedaa ku leh sidaad ninkaada adu qabateed ula dhaqanto ayaa ilmahaaga loola dhaqmiyo ogow haddaad ninkaaga aad wanaajisid adigu oo hadduu dhib badan yahayna aad u sabirtid hadduu baari yahayna baarinimadiisa aad ka faa'iidaysatid oo tacaawunka diiniga aad isku tacaawuntaan oo ilmihiinana diinta iyo aakhiradooda aad ka wada fikirtaan waxaad ogaataa ilmahaagaabaad waddo fiican u jeexday ogow haddii laakiin gabadhu ay ninkeeda si xun ula dhaqantana ilmahay dhashoon baa si xun loola dhaqmi doonaa waa la mid ninkuna kadaalika hadduu xaaskiisa si xun ula dhaqmo ilmahaaga unbaa laga goyn doonaa saad ula dhaqanta islaantaadii ogow xuquuq baan isku leenahay xuquuqulcibaad xaqiisa ilaahay hadduu addoonku ka gaabiya baa la yidhi ilaahay waa cafin karaa laakiin xuquuqda bini aadanka dhexdooda ilaahay ma cafiye ogaada oo nabigeennu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa xadiis fi sunan maalin kastoo isniina iyo maalin kastoo axada maalin kastoo isniina iyo maalin kastoo khamiisa acmaasha wanaagsan ee addoommaha wanaagsan ay qabtaan ayaa ilaahay la hordhigaa buu nebigu yidhi addoon kastoo ilaahay aan u shariig yeelin dambigiisa waa laga dhaafaa buu rasuulku yidhi allah inaga dhigo ilaana qofka hadduu shirka hadduu ku dhaco dambigiisa la dhaafi maayo ilaa uu shirkiga ka toobad keeno hadday laba qof oo muslimiina ay jiraan oo dhexdooda cadaawa ay ka jirtana ama caloolxuma ay dhex taallana buu nebigu yidhi kuwaana camalkooga lama furo ilaahay baa idhahda celiya kuwa kitaabkooga celiya ilaa dhexdooda ay iscafinayaan aysa saamaxayaan labada camalkooga celiya baa la yidhaha buu rasuulku yidhi marka waa inaan ku wada joognaa cafis xaqiisii waan siiyey ee xaqayga han ka helo may taa laguma wada joogi karo xuquuq laguma wada joogi karee waxaa lagu wada joogi karaa bay culimmadu leeyihiin maaragtaane cafiska lagu wada jooga cafiska
ninkuna gabadhiisa wixii akhtaa ka dhacay waa inuu iska cafiyaa gabadhu ninkeeda wixii gafaf ka dhacayna waa inay cafisaa waayo haddaana cafisaan ku wada soconin isku dhac baa imanaya hadday labada qof ee mas-uulku isku dhacaana ciyaalkay naga dayacmaya ogaada meelo badanoo hadda aan soo marnay hooyooyin waxaan aragnay ooyaaye maxaa ku helay ilmahaygii baa layga qaatoo layga watay ii soo ducee qaarna waa laga qaatay qaarna balwadda ka qaadatay mukhadaraadka ka qaatay habeen dhaweeto annagoo joogna meeshii magaaladii Stockholm ayaa nin dhallinyara noo yimiday markaasuu yidhi sheekhow dadkan masaajidda joogeed wacdinaysaan iska daa buu iga yidhi dadka dibadda jooga u tag buu iga yidhi dhallinyarada u tag buu iga yidhi waayo baan ku yidhi wuxuu yidhi 10 sano xarigan hadda ka soo baxay buu yidhi 10 sannadood ayaa soo liqay buu yidhi 500 oo dhallinyaro Soomaaliya oo intooda u badan cimri daa'im lagu wada xukumayba cimri daa'im lagu xukumay ayaan jeelka kaga soo tagay oo mid walba qol yar oo inta leeg buu ku jiray uu leeyahay way hooyoy way aaboy buu leeyahay buu yidhi 500 oo dhallinyaro ka soo baxay buu yidhi oo jeelasha ku wada jirta oo intooda badan lagu xukumay cimri daa'im xabsi daa'im lagu wada xukumay badweyn baan ubadkeenin ku soo dhex tuurnay markaasaa hooyooyinkii laabtooda dalaacday maantay murugoonayaan bilaahi calaykum waxaan ilaahay intiina qaaradda soo gashana allah ina ilaaliya amiin dhahada wax dambana dalka ka soo qaadinay iska daaya dadkan aad beenta u sheegaysaan ee magacda beenta aad ku soo xambaaraysaan janno kuma soo wadaan ilaahay ka boqo iska daaya dadka oo halkooga ilaahay ku arsaaqo insha Allah dhahada insha Allah dhahada sawaad ka xanaaqdeen maanta waaniga doorkii ka yar dhawaajiyay markaan Addis Ababa joognay ee viisadu ay noo xareysnayd ayaan masjiidka ka wacdinayay baan ku yidhi line baan noo xareysanay noo soo duceeya qolada Addis Ababa fadhidana intooda badan waa qolo xagga soo eegaysa xaggan u bay soo eegayaan markii wacdigaan dhameeyo mid afka ii soo dhuubo anigana line baa ii xareysan kow dadka oo dhan line baa u wada xareysan Sheekh Xuseen ducada nagu soo kab markaasaan ku dhageyso annaka jamaaca nahay baan ku ilaahay dartii baan u soconaa dalka aan u socono wax adduunyo qarad oo kale nahay ma jirto ilaa dadka walaalahaya ee muslimiinta inaan soo ziyaaranno oo masaajid ay dhisteen aan soo aragno oo intooda khayrka haysana aan khayrka halka ka sii wada oo kordhiya khayrka inta shaydaanku uu la tagayna aan halkooga ugu tagno soo baraarujino inta kaliya annagu aan u soconaaye laynka baan noo xareysan oo laynkaas waa sax weeyaane noo soo ducee adigana waxaan kugu ducaynay kuwa kula mida meeshay ka yimaadeen hadday burca ka yimaadeen burca Allah ku celiyo hadday boosaaso ka yimaadeen boosaaso Allah ku celiyo hadday muqdisho ka yimaadeen muqdisho Allah ku celiyo markaas sheekh waana habaaraysaa habaar maahayna waa duca baan ku hadaad wax garanayso waa duco dalkaaga qabri iibsan maysid halkaad u socotid baan ku indhahaad u taagaysad u alla baryayso qabriga la iibsada qabriga war qabriga lama iibsado yaa mise waa bilaash waa lacag weeyaan qabrigu iyo waqti kooban dhulkaaga Allah kugu arsaaqa baan ku yiri arsaaqad xalaal ah muslimkaaga ku dhex jir nin sheekha markaa igu yiri waad asiibtee halka ka wad buur habaarka sheekho masjidka kutubta ka barjir xagga dambe halka ka wad buur habaar buur kuwan aqaladooda Allah ku celiye marka Allah inoo dama dhaaf diintan Allah inagu sugo run ahaantii alxamdulillaah nima dhaliilayno khayr badan baa inaga muuqda dadkii muslimiinta ee qaaradan u soo gudbay dadka maanta diin laga dugsanayo waa inaka masaajid kastoo ku tukano dadka hayay ama tujinayay ama gacanta ku hayay waa dadkeena af Soomaaliga ku hadla
waxaan is idhi dadkan weli waa ka anu 13 sano kadib baan inagu soo noqday imika dadkeena qurbaha ka yimaadana meelo badan baan ku kulannaa xaramka iyo magaalooyinkeenii waaweynaa iyo ayaan ku kulannaa waxaan is idhi waan fikiray marka waxaan idhi warniyo dadkan khayrka u aasan muxuu yahay u duugan waa kuwan gabdhaheennii wada xijaaban magaalo kastoo iminkaan soo dhex maraynay gabar Soomaaliya oo xijaaban baa markii baan arkaynay markaan magaalada soo dhex galno dadkii kale muslimiinta ee wadankan ama qaarkood inooga soo horeeyay ama qaarkood inaga dambeeyay ba dharkii bay dhigtay madurba waa fikro waxaa idhi waa laba shay shayga koobaad wadanka inaku aan ka soo jeedno waa wadan 100% muslima waa wadan saxwa islaamiyana ay ka socoto oo masaajidii kutubtii xalaqaadkii bay nooga socda macaahidii baa ka furan meel walba dugsi meel walba ijtimaac jamaacadadii culamadii ducaadii khayr badan baa wadankeena ka socda taas horta waa wayna saacidaysaa talabaadna waxa weeyaan baan isiri dadka soo baxay culuma dhex socota ficlan culuma inay la socota waa kuwa masaajida gacanta inagu haya haday khudba tahay haday mu'tamar tahay haday muhaadara tahay haday wacdi tahay haday tacliin tahay waa kuwa inay baraarujinayeen daba socda laakiin waxay arin ka taagan tahay kuwa wadankan ku dhashay kuwa si dhali doonaan calaamatu su'aalku kuwa abu saaran yahay noqon doonaan ilaahay baan haysanaa insha Allah dhahada yaa noo maqan hore yaa noo maqan Allah baa noo maqan laba shay haddaad la timaadaan waa badbaadaysaan waxna waa badbaadinaysaan ila bad baa lagu soo dhex dhacay moogta badweyn ninka ku dhex dhacay waa inuu dabaal yaqaana hadduu dabaal aqoon ka warrama bad baa lagu soo dhex dhacay meel kasta waa bad dhulkan ka imana xataa macaasidu way jirtaa waxa ka badbaadaya maanta macaasida iyo qaflada iyo diin la'aan waa qofka diinta Ilaahay ka shaqeeya in lam takun daa'iyan fatakunu mad'uwan bi culimadu yiraahdaan hadaa dadka adigu khayrka aad ugu yeedhin adiga lagu yeedhi hadaa khayrka aanad ka shaqeynin shar baad ka shaqeyni hadaa xaq umada u bandhigin ala badalka lagu bandhigi magaalada Helsinki leeyahay maalin dhaweeytoon joognay masaajidkii annaku aan joognay dhalinyaradii nala socotay baa mid wuxuu noola soo galay buugaan af Soomaali ku qoran warwa maxay buugaanta in cadaan iyo islaan cadaan oo isla socda ayaa iridda taagano waxay ku yiraahdeen ma Eritrea baa tahay ma Oromo tahay ma Soomaali baa tahay maxaa tahay Soomaali baana kii Soomaaliga ay dhiibeen buudi waa buug markaan eegnan waxa ku qornaa nabi Ciise iyo hooyadii Rumee labada ilaahay arlada u soo dhaadhacay haayeene rumayso waad ku daba liibaan iyakee haddaad markaasaan ku yidhi noos dhaadhaco soo fiiriya markaasuu u dhaadhaco uu soo waayey annakii dhannaya khuruujka tabliiqa la soconaba lana tabliiqeeyeba ma fahamta marka ninka adduunyo halkan ka fadhfadhayna ka waran marka annakii adduun u imanay ayaaba dacwadii markiiba lana gaarsiiyey ragiina adduunyada ariyanaya ka warnay 15 saac taksiga saarano seed yeeli waxaan si laba shay haddaad la timaadaan waa badbaadaysaan لأن أرض إلهي بس كله يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون بإلهي يا عبادي الضوما هيجي يقول كان وبلارين يهي أرض أنا إسكله أرض يدو بلارين تهي بإلهي دي أرض كور كذا أنا يقول عبود بإلهي دي نبي إبراهيم عليه السلام ضدك أدوية كنا لودن بعدين عسكتها كلجي سكون وكلجي لكن نبي إبراهيم حق الله جري أقول يا الله جري حق الله سعودي صاحب الحق بوها dadka adduunyada ku nool oo dhan dhinac bay iska taageen walow qaraabadiisi ku biiraan markaas dab loo shiday dabka loo shiday holaciisu wuxuu gaadhay haadka samada maray inuu soo dhaco nabiyullaahi ibraahim alayhi salaam laba shay buu ku badbaaday laba shay bay culimadu yiraahdaan shayga koobaad waxa weeyaan
dadka ilaahay buu ku xidhaayay shayga labaadna asaga ilaahay ku xidhnaa labada khasladood hadday muslimiintu ay la yimaadaan meeshay doonaanba ha joogaan fasaad kastay ku dhex dhacaan fasaadka ma saameynaya ogaada way ka soo dhex bixi doonaan insha allah dhahada labadaa shay inaan dadka ilaahay ku xidhno inakuna ilaahay aan ku xidhnaano yaasaa u diyaara allah ina barakeeyo fa insha allahu tacaala kolley annaku safar baan iska naho xagga iyo magaalo kale aan kusii dheeranaynaa sida aad noo soo dhoweyseen ilaahay ninkan haynii soo dhoweeyo waanada iyo naseexada uunbaa jamacaddu ay la socdaan culumana way nila joogtaa annagu magaaladan markii hore waxaan lahayn leanna magaaladan aan dhowatay culummadu mu'tamar ay ku qabteen waxaan idhi magaaladan culummadii usbuucii dhowatay iskugu tageen ee ummadoo dhan laga baraarujiyey ee khayrku uu ka socday 3 maalmood waxaad ka sheegaysaan baaba iska yare marka horeba annakuna caamadaasaan wacdinaayo wax u sheegnaa waliba dadka dhallinyarada ee meelahay joogaan baan ugu tagnaayo kuwaasaan ku dadaalnaayo khayrka ku baraarujinnaa mooyaane masaajidda inta badan culummadaba ka hadasha laakiin maadaama ay yidhahdeen iyaguna ha soo weecdaan oo na soo ziyaarta inaan annakuna na soo ziyaarno ni aragno waan ku faraxsannahay saad noo soo dhoweyseenna waxaan leenahay allah inii soo dhoweeyo diintiinnii iyo khayrkii aad jeclaydeen unba halka aad ka sii wadi doontaan walaalkeen baan ku wareejin doonaa ducadana insha allah waan ku khatimi doonaa insha allah جزاه الله خير الله inaga aqbalo saan u dhageysanay majliskan aynu u fadhinay muddada halka saaca kaanama waxaad moodaa inaan fadhinay 10 daqiiqo allah jannada ha inoogu kulmiyo sheekhu meel dhowr buu inooga yimid isagii jamaacadiisu waxay inoogu imaadeen khayr iyo inay diintayna xasuusiyaan wax cusub inay inoogu sheegaan inooguma imanin labadaa shay uu sheekhu sheegay inaan dadka dacwada gaadhsiino hadda wuxuu sheekhu markaan gaadhiga soo waday uu ii sheegay oo uu yidhi ka warran buu yidhi haddaan ii sheegtid meelo waxaa jira buu yidhi magaalada aan maqlay oo magac leh oo munkar ka socda haddaan tego markaasaa ku yidhi sheekh Kiyatuboli waa masaajidka lagaa sugaya marka innakii meesha deganayn ayaa laynaga rabaa inaan insha allahu tacaala dacwada qaadno oon dadka diinta u sheegno oo salaada iyo waxyaabaha maaragtay ee awliyaadka aan u sheegno oo aynu dadka diinta gaadhsiino dhammaanteen arrinkaas wayna wada saaraya cid gooniya ma saarna markaa shaqaale diineed inaan noqona diyaar mootiin insha allah dhah raggu gacanta way la baqanayaan kulli waxay isleeyihiin maaragtay dacwada tabliiqa waxaa ka dambeeya isleeyihiin yaa baxaya 4 beri 3 beri taas niyadda lagu wada hayaa soo baxeen wadankii bay ka soo baxeen niyadda ha bedelo yaa diyaar waa niyadda inuu bedelo gacanta taaga inagu waa soo baxdeen niyadda bedela insha allahu tacaala sheekhu inoo ducayn doonaa dad badan baa mas'alo soo qortay oo su'aalooyin sheekh yuusuf baa inoo jooga imaamkii masjidka khatiibkeennii wixii su'aalooyina maalinka khamiista sheekheena weydiiyeyna culimadii waa la weydiiyey sheekhu insha allahu tacaala wuxuu inagu soo gabagabayn doonaa isagiiyo jamaacadiisu 2 shay ta koobaad idaaradii masjidka inoo furtay khayrkii maalmaha dhaweyta socday oo dhan iyagoo ku soo jiray soo daalay haddana khayrka inagu daba qabtay albaabada inoo furay ayna soo dhoweeyey inuu u duceeyo inuu ilaahay khayrka waafajiyo innakana ilaahay khayrka ina waafajiyo qulubteena isku furo iyo dad badan baa xanuunsanaya qaar carruur laga qaatay qaar xanuun mataqaanaa kansar u hayo inuu ilaahay iyagana caafiyo runtii waxyaabo fara badan ayaa maaragtay ducooyin fara badan oo noocyo kala duwan leh si jamacana inaan ugu ducayno fadcu allaha wa antum muuqinuuna bilijaaba marka inakuna aamiintaan idhaahno sheekhuna waa safar uu safri doonaa insha allahu tacaala isagii jamaacadkiisu raali noqo sheekh adiga jamaacadkaaga warunta insha allahu tacaala ducadaas ayaan insha allah ka codsanaynaa haynu ducaysano kadibna si tartiiba masaajidka nadaafadiisana haynu ilaalino jazakum allahu khayr wa baaraka allahu fiikum بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذنبنا الله هداف ذنبك والدينتنا الله هداف دينت الله إنه معنا مرلكنا الله شافي موتاتكنا الله نحرست
amni iimaanka allah inoo ziyaadiyo quluubteenna allah mideeyo towfiiq allah ina siiyo dalkeennii nabadgelyadiisa iyo dowladdiisa allah inoo adkeeyo dalkeennii waa dal nicmad iyo khayr badan ilaahay uu dhigaye dowladnimadiisa iyo allah inoo adkeeyo amnigiisana allah inoo adkeeyo muslimiinta meelay joogaana muwaafaqeen midnimana allaha siiyo dad badan hooyooyin badan baale u badbaala naga watay allah uga soo celiyo kuwa xidhanna jeelasha allah inooga soo daayo kuwa balwadiya mukhadaraadka ku dhacayna allaha ka soo hadeeyo innakana istiqaama allahina siiyo allaha diinteenugu sugo qofkii bukaba caafimaad sariic allaha siiyo qof walba qofkii kurbaysana kurbada halkay ka haysa allaha ka faydo qofkii muraadla muraadkiisoo macsadahayna gacanta midig allaha ka siiyo markaskeennan iyo masaajidkeennan iyo culimmadeennan cimrigooda allah inoo barakeeyo istiqaamo diineed allahina siiyo safarkan annaga allah inoo dhib yareeyo gaalada waddanka nagu soo dhowaysana ilaahay gaalnimada ha uga naxariisto ilaahu gaalnimada uga naxariiso ilaahu soo hanuuni ilaahu nebi damba u iman maayo muslim ay ku daydaanna uma imana ilaahu u naxariiso ilaahu soo hanuuni ilaahu cadaabkooga waxba kuu qaban maaye in tucadibhum fa inahum cibaaduka wain takfir lahum fa innaka anta alcasiizu alxakiim ilaahu soo hanuuni kuwa sababtooda lagu hanuuna ilaahu naga yeel isma haday kara ilaahu nahadee khaatimada ilaahu noo suubi waxa aan ku hadlaynoo dhan ilaahu nagu qaban ilaahu naga abaalmari sala allahu calaa nabiyina maxamed